عويسي wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta telefishinka BBC-da London wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah magaalada Mosul way duntay BBC-du waxay joogtaa gudaha magaalada oo ay dawladda Ciraaq sheeganayso inay ka sifeeyeen kooxda IS riyadii socon weyday waxaanu la kulmi doonaa dad Mexican ah oo Mareykanka la keenay iyagoo carruur ah balse hadda dib loogu celiyay dal aanay aqoon u lahayn balaayiin ayaa lagu bixiyay wadada loo bixiyay jidka xariirta ee Shiinaha waxaanu ka warrami doonaa qorshaha Peking ay ku dhisayso jidad casri ah oo isku xidha 3 qaaradood sida ay sheegtay dawladda Ciraaq dagaalkii magaalada Mosul oo mar ahayd meel ay ku xooganaayeen kooxda la baxday dawladda Islaamku ayaa la soo afjaray iyadoo oo wali ay jirto iska caabin yar haddana uma eka inuu dhamaaday dagaalku lagu jiro IS mar kale waxa uu dalku galay oo la soo gudboonaatay culayska sidii loo dhisi lahaa midnimada bulshada kala firxatay Ismaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya magaalo qurux badan ayay mar ahayd balse hadda badi waa mid burbursan dagaalka bilaha socday ayaa dhismo kasta wax gaarsiiyay ama burburiyay cali rajo badan kama qabo in walaalkii iyo qoyskiisu ay weli nool yihiin gurigooda diyaarad ayaa duqaysay dhowr toddobaad ka hor waxaa isticmaalayay dagaalamayaasha kooxda la baxday dawladda islaamka cali wuxuu leeyahay telefoonka ayaan kula hadlayay walaalkay markii uu burburka ku hoos xannibmay kadibna igama qaban maydad isbeddele unbay ka heleen meel kastoy aadaan kooxaha baarista iyo badbaadinta waxaa loo malaynayaa in kumanaan la dilay qaar waxay ahaayeen IS kuwana dad rayid ah qoysaskani waxay 3 sannadood ku hoos noolaayeen IS hadda way tegi karaan ku dhawaad 1 milyan ayaa horay guryahooda uga tegay muddo ayayna qaadanay inay soo laabtaan waxaa jira 19 xero oo la tacaala xaaladaha degdega ah oo ku yaal hareeraha Mosul maalin walbana kumanaan mararka qaarna 10 kun oo qof ayaa ka soo carara magaalada heerka uu gaarsiisan yahay waxyeelada aan aragnay waa kuwa ugu sareeya ee ku aragnay meel walba way caddahay in dadka ka soo cararay Mosul waxa ay u adkaysteen in ay tahay mid aan la malaysan karin in badan cabsida dagaalka kama baxaysa noloshooda qaramada midoobay waxay sheegtay inay bilo qaadanayso ama sanado si wax looga qabto xaaladda bani'aadamnimo waxaa lagu qiyaasayaa inay ku kacayso ugu yaraan 990 milyan oo dollar si wax looga qabto waxyaabaha aasaasiga ah ee magaalada sida biyo nadiif ah iyo korontada IS waxay haysataa dhul ku yaal meel ku aadan galbeedka iyo koonfurta Mosul iyo meelo kale oo Ciraaq ah qaar ka mid ah qubarada ayaa ka digaya haddii aan si fiican loo maarayn wixii la qabsaday inay IS dib u soo noqon karto inkastoo magaaladan loo xoreeyay qoysaskan haddana wax badan ayaa taas ku baxay qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa wali internet la'aan ah kadib markii uu go'ay internetka fiber optiga ah internetkan xadhigiisa oo soo mara badda ayaa Soomaaliya laga hirgeliyay dhamaadkii sanadkii 2013 wuxuu hadda go'an yahay in ka badan 2 usbuuc sida uu sheegay wasiirka isgaarsiinta iyo boostada 10 milyan oo dollar ay maalin kasta khasaarta Soomaaliya wuxuu sheegay in hagaajinta xadhigu ay socoto lana dhamayn doono usbuucan haddaba arrintan waxay saameysay ganacsatada Soomaalida ee dalalka deriska ah sida Kenya Axmed Faarax waxa uu ka mid yahay dadka ay saameysay ee jara tigidhada diyaaradaha aad buu noo saameeyay internetka Soomaaliya ka maqan travel agent ahaan gaar ahaan xafiiska anaga Safari Global saameynta ugu weyn oo aan hadda halkan ka xusi karo waxa weeyo dadkii customerka oo Soomaaliya joogay inaan tigid u goyno way nagu adkaatay xafiisyadanada Soomaaliya Muqdisho ama Kismaayo haddii aan xitaa connection xafiisyadanada Nairobi ama Addis aan uga jarno tigid qofkii Soomaaliya joogay wali wuxuu u baahan yahay in tigidkii loo diro email ahaan loogu diro so uma diri karno haddaad qofkii emailkiisa aad ugu dirto internet inuu helo uu soo daabacdo datadii ma suurtagelayso soo marka saameyntaasuu nagu yeeshay saad la socotaba agencyga ama travel agentigu wuxuu ku shaqeeyaa internet weliba GDS-ka aan ku shaqeyno ama software programka aan ku shaqeyno internet travel agentiga internet xitaa awoodiisu yartahay ma ku shaqeeyo marka sidaas darteed saameyn badan buu noo geystay dadkii gaar ahaan dadkii Soomaaliya joogay
inaan tigid u jirna ama aan email ugu dirna aad noogu adkaatay. faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan internetka iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya moobilkaaga. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. maxkamadda sare ee Britain ayaa ku dhawaaqday in hubka Britain ay Sacuudiga ka iibisaa sharci yahay. go'aankani ayaa maxkamaddu ka soo saartay kiis ku saabsanaa in Britain jebisay sharciga adduunka kadib markii ay hubka ka iibisay Sacuudiga loo adeegsaday dilka dadka rayidka ah ee Yemen. Sacuudiga ayaa 2 sano imika waday duulaanka cirka ay ku hayaan Xuutiyiinta. hay-adda mushaharka ee Kenya ayaa ku dhawaaqday in mushahar dhimis lagu samayn doono madaxda sarsare sida madaxweynaha, barisaabada, wasiirada iyo xubnaha baarlamaanka. isbedeladan ayaa dhaqan gali doona marka doorashadu dhacdo bisha soo socota. xildhibaanada Kenya ayaa ka mid ah kuwa adduunka ugu mushaharka badan. wiilka uu dhalay madaxweynaha Mareykanka ayaa qirtay inuu la kulmay garyaqaan Ruusha oo u ballan qaaday inuu soo bandhigi doono waxyaabo Hillary Clinton khatar ku noqon kara. laakiin wiilka Trump ayaa ku adkaystay inaanay garyaqaan Natalia Veselnitska wax sidaasi oo muhiim u gudbin oo ku saabsan Hillary Clinton. wareeg cusub oo wada hadallada Suuriya iyo UN-tu dhexdhexaadinayso ayaa ka furmay Geneva maanta. xabad joojinta koonfur galbeed ee Suuriya ayaad moodaa inay hirgashay. wada hadalladan ayaa diiradda lagu saarayaa arrimaha maamulka, argagixisada, distoorka cusub iyo la dagaalanka argagixisada. lagama filayo wax heshiisii inay wada hadalladan ka soo baxaan. musharax ahaan Donald Trump wuxuu wacad ku maray in uu beegsan doono muhaajiriinta sharci darrada ah isla markaana uu dhisayo gidaarka xuduudda Mexico. 5 bilood ee ugu horeysay ee xilka hayay tirada dadka la xidhay sare ayay u kacday, laakiin ilaa iyo hadda dad yar ayaa la masaafuriyay. balse hal koox oo gaar ah ayuu bartilmaameedsaday, kuwaasi oo sharci la'aana waxaana loo yaqaanaa kuwii riyoonayay. Axmed Xaaji Xasan ayaa ka warramaya. kuwani waxay ka mid ahaayeen dadka ugu firfircoon Mareykanka. hadda waxay ugu wanaagsan yihiin dalka Mexico. waa dhalinyaro 2 luqadood ku hadla oo loo garanayo kuwa hamiga leh. hadda kumanaan ayaa ku soo laabtay Mexico si iskood ah ama kuwa la soo tarxiilay. kulankan ka dhacay caasimadda Mexico, kuwa la soo tarxiilay waxay muuqaal kula hadleen dhalinyaro ku sugan 20 magaalo oo Mareykan ah. kuwa badan waxay ka hadleen sheekooyin isugu jira cabsi, soocid, masaafurin iyo ceebayn. dhalinyaradan hadda gadaashooda ma eegaan ee waxay eegayaan fursadaha Mexico yaalla. waxaan leeyahay halkudhig riyooyin ayaa Mexico ka jira. arrintu waxay tahay inaadan ka dhigi karin riyada Mareykanka taada. tani waa hamigaaga. haddaad Mareykanka ka dhigto waa sida adigoo isku xiray derbiga Trump uu doonayo inuu dhiso. inkastoo madaxweyne Trump uu weerar afka ah ku qaaday Mexico, haddana musaafurinta waxay hoos u dhacday 12%. boqolkii maalmood ee la soo dhaafay. dhowaan wuxuu sheegay in dadka Mexico ay isdejiyaan. kuwa u dooda xuquuqda aadanaha waxa ay sheegayaan in loo baahan yahay in soo galootiga la baro xuquuqdooda. waxay u maleeyaan haddiisan ay sharci haysan inaysan xaq lahayn. marka waa inaan barnaa. hadda dhib yar ama khalad yar ayaa cawaaqib xun yeelan kara. qof garanaya waxay cawaaqibtaasi yihiin waa Francisco. waxaa lagu eedeeyay xadgudub, wuxuuna sheegay inuu maray meel gawaarida la dhigto lana soo masaafuriyey kadib 14 sano oo ku noolaa Kentucky. kadib dhibaato uu kala kulmay maamulka Mexico, wuxuu ugu dambeyn helay kaarka aqoonsiga. waxaan jiraa 46 sano, laakiin Mareykanka shaqo waan ka heli karaa dhib la'aan. halkan waa dhibaato. midda kale waxay tahay in dadka qaar ay nagu dhahaan qowmiyadda ma ihid, laakiin dadka igu haragga ah waa run. fursad ma helno. isku xirka dadka sida Francisco iyo kooxda taageerta dadka la soo masaafuriyey waqti ayay qaadataa. masaafurinta haddii hoos ay u dhacday, hadda dad yar ayaa weli filayo in Trump uu faraha ka qaadi doono. iminkana wararka ciyaaraha ugu waaweyn haddaynu eegno, Wayne Rooney ayaa sheegay inuu hiigsanayo inuu koob u qaado Everton. waxa uu sheegay inay tahay halkii ugu sarreysay taariikh ciyaareedkiisa. Rooney ayaa kooxdan u ciyaaray 13 sano ka hor
iminkana waxa uu diyaar garoobayaa inuu Tanzania u raaco halkaas oo Everton ku ciyaarayaan tababarada xilli ciyaareedka ka horeeya. waraysi uu bixiyay ayaa laga dhadhansaday in jacaylka uu qabo Everton aanu weli salguurin. run haddii aad doonayso waxaan ka aamusnaa arrintan 13 sannadood waxaan guriga ku xidhanayay bajaamo Everton aniga iyo carruurtaydu waxay ahayd waxoogaa taa inaan ka aamuso shaar marka aad xidhato waa wax gaar ah sidii aan samayn jiray 13 sano ka hor. xagga tennis-tana Venus Williams and Simone Halep ayaa u soo gudbay wareegga labaad ee Wimbledon kadib markii ay maanta wada badiyeen. dhinaca kalena tartanka ragga Andy Murray oo ah ninka horyaalka adduunka haysta ayaa kaga badiyay 3 gacan Francis Benoit. Payne, Rafael Nadal waxay wada ciyaarayaan hadda Chelsea Muller. mashruuca jidka xariirta ah ayaa Shiinaha ugu yeedhay kii qarniga. qorshaha mashruucan ayaa ku kacaya ku dhawaad $1 trillion oo lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaale ee in ka badan 60 dal. iyada oo uu Mareykanku hogaaminayay dhaqaalaha adduunka ayaa haatan Shiinuhu kala wareegay. balse dadka dhaliilaya tallaabadan ayaa ka digaya isku daygan in Shiinuhu uu ku doonayo inuu galaangal istiraatijiyadeed ku yeesho kaasi oo deymo badan lagu yeelanayo wadamada Shiinaha ay bahwadaagta yihiin 10 sano ee soo socda. qarniyo ayaa owr xiriirsan mari jireen wadadii ganacsiga xiriirta ee u dhaxeeya Shiinaha iyo reer galbeedka. Shiinuhu waxa uu doonayaa in uu dib u dhiso wadadaasi. markii uu Xiaodong uu ka bilaabay halkan 34 sano ka hor, Shiinuhu wax badan uma dhoofin jirin dibadda. ninkaasi ayaa hadda gundhig u noqday qaran ganacsiga ku xoogan. cadaadis xoog leh ayaana haysta wax badan ayaana laga filayaa rajooyinkana waa ay badan yihiin waxaan u baahannahay tababar si aan horumar wanaagsan oo dhaqsiyo leh u samayno. cadaadisku waxa uu ka imaanayaa madaxweynaha iyadoo haatan Mareykanku hormuud ka ahayn ganacsiga ayaa madaxweyne Xi Jinping waxa uu helay fursadiisa. aragtidiisan waxa uu ku sheegay dariiqa degdega badan. aragtida Shiinaha ee dariiqan degdega badan waa ay ballaaran tahay. durbana Shiinuhu wuxuu gacan ku dhigay alaabta dadka ay isticmaalaan. suuqa Yiwi waxa uu ka mid yahay suuqyada ugu waaweyn dunida. in dibadda wax loo dhoofiyo iyo in dalka la dhiso ma aha waxa haatan uu qaadi karo dhaqaalaha Shiinaha ee koraya. hadda qorshaha ayaa ah in dibaddana ay wax u dhoofiyaan taasoo ah in la wada faa'iido sida Shiinuhu uu sheegayo. laakiin marka uu dhammaado wada hadalka ganacsatada Shiinaha gorgortan xoog leh ayay geli doonaan. dunidana wax badan bay ka iibsan doontaa ayagana sidoo kale. xakamaynta ay dawladdu ku hayso wax soo dhoofintana caqabad ayay keeni doontaa. dawladdu way bedeli kartaa sharciga markay doonto. ma jira sharci aan la bedeli karin. waxa jira hadda waxa weeye goldoloolo yar oo haddii ay dawladdu u fiirsato ay faahfaahiso waa la bedeli karaa. arrintuna way fududaanaysaa. balse ganacsigan dariiqii xiriirta loogu magac daray ayaa ah Shiinaha oo xalinaya dhibaatooyinkiisa. waxay qaadan kartaa 10 sano ka hor inta aanan laga hadlin in uu noqdo ganacsi u dhigma kii hore. balse maadaama aysan jirin dal kale oo soo bandhigay fikir ballaaran xilligan la joogo ayaa ganacsigan waxa uu yahay himiladii ugu weyneed ee jaangoynaysa qarnigan. ugu dambeyntiina bal nala daawo muusigyahanadan jecel dhirta biyaha hoostooda oo ololahoodii ballaadhiyay. qiyaastii 400 oo isugu jira kuwa quusa iyo kuwa dabaasha ayaa ku tumay muusiko meel deegaana oo ku taala biyaha hoostooda Florida. waa munaasabad sanadla ah oo loogu talagalay in dadka lagu dareensiiyo sidii loo ilaalin lahaa dhirta biyaha hoostooda iyo deegaanka. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyayba waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa bogga bbcsomali.com. muuqaallo iyo sawirro kala duwan oo ku saabsan wararka aanu ka shaqaynayno waxaad kala socon kartaa BBC Somali Facebook. intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeennii caawa. waa ku mahadsantihiin daawashadiinna. inta aynu mar kale dib u kulmayno waxaan idin leeyahay nabadgelyo.